وإذا سلام ولا رجال ولكن شو حكمة أو منطقة بس هو فدي حكمة كلام مهمة مدة ما أنت موضوع بحوي كفاية وقت جاك من اللي يراهو قبل اللي يراهي وقت جاك ما أنت كفاية waxaan rabaa inaan ku dareensiyo khatarta maanta aad gacantaada ku haysid oo ah taleefankaagu waa khatarta maanta ugu badan oo aad gacanta ku haysid maxaa yeelay waqtigaagu waa wax ugu muhiimsan oo haysid taleefankuna wuxuu khatar ku yahay waqtigaaga social media aad maanta dhan ku jirtaa Facebook account ku leedahay Instagram account ku leedahay YouTube waxaan ka sugayaa TikTok warkiis iska dhaaf taas oo jirta yaa daawanaysa waxa daawanaysa dad wax xikmada oo ay hayaan in la arag marka waxaan rabaa inaad waqtigaaga ka faa'iideysid intaad maanta dhan waqtigaaga ku lumin lahayd social media waxaad geli kartaa jirdhis caafimaadkaaga ayaad ka taxadari kartaa waxaad baran kartaa sida cunto wanaagsan loo diyaarsado noloshaada ayaad wanaajin kartaa way fahmaysaa Soomaa wax ayaad baran kartaa buugaag ayaad akhrisan kartaa waxaan kaala talinayaa khatarta ay leedahay taleefankaaga iyo social media apps ku dhex jira dhibka uu kugu hayo aan rabaa inaan kaaga digo maanta cibaadayso wax akhriso jirdhis gal maanta dhan taleefanka ninka dhalinyarada ah waxa arkaysaa ragga dhalinyarada ah maanta dhan saas u fadhiya waxa soo dhacaya message xabadkii soo dhacaa hore uga jawaabaya goormee wax focus garaynaysaa goormee ayaad walaalow wax focus garaynaysaa oo aad wax qabsanaysaa haddaad message soo dhacaba ka jawaabaysid messageadan meel uma socdaan messageda waa la isku sugaa maybe weekendiga hal mar la furaa waa laga wada jawaabaa waa la iska tuuraa dantaada inaad fakartid wey khatarta kale uu kugu hayo waxaa waa chiefkaaga taleefkaaga markaad seexanaysa ma damisaa mase message soo dhacaba waa maqlaysaa waa ka jawaabaysaa hurdo fiican ma helaysa maxaa yeelay taleefanka wey haddaad dad iyo gabdho kala duwan la sheekaysanaysid waxaa ogaanaysaa gabdhahan meel uma socdaan sanad kasta boqolaal baa soo korto kumanaan maalintaa diyaartahay gabar ma weynaysid waxaan la hadlayaa wiilasha dhalinyarada Soomaalida maalintaa diyaartahay gabar ma weynaysid ee adigu wax baro isdhis nin quality leh noqo oo shaqaysto waa isla soconaa Soomaa intaas ayaan maanta idinkula talinayaa waa walaalkii Sheekh Xikmad oo intaas xikmadaas idinku dhaafaya aan isla soconno